Assalaamu calaykum. Maanta waxaan dhigan doonaa casharkii 15aad oo ku dhigan doono jajabka ama fractionska. Shalay waxaan soo aragnay mixed fraction oo aan ku sheegnay jajabka kan, balse wuxuu Soomaali ku noqonayaa jajabka kan inta waynu saxaynaa. Maanta waxaan eegi doonaa calaamadaha loo isticmaalo jajabka. Jajabka waxaa loo isticmaalaa iyada oo mar sarreeya iyo hooseeya loo kala samaynayo sida shalay soo aragnay. Waxaa sidoo kale la isticmaali karaa iyada oo loo dhaxaysiinayo labada tiro ee jajabka ahaa forward slash calaamada lira. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa calaamada saamiga ama ratio-da iyada oo labadii tiro ee jajabka ahayd loo dhaxaysiinayo calaamadii la soo dhigi jiray saamiga ahayd oo ay noqonayso saamiga qayb marka loo eego wixii guud ee lagu siiyay. waxaa la isticmaalayo kale iyadoo qaybinta caadiga la isticmaalayo oo la oranayo 3 loo qaybiyo 4 ama 3/4. waxaad si ogaataa hooseeyuhu marka la joogo jajabka ma noqon karo 0. haddii uu 0 noqdo waxay xisaabtaasi ka noqonaysaa undefined ama xisaab aan qeexnayn. laakiin jajabka marka la joogo 0 sarreeyo wuu noqon karaa. hadduu sarreeyo aad aragto isagoo noqday waxay ka noqonaysaa xisaabtaasi ever. tusaalayaashan baynu eegi doonaa jajab dhafan aynu ugu ragayno jajab maqumane. markaynu doonayno inaynu u rogno qaabka la isticmaalaa qaabkaasaynu dhigan doonaa maanta. tusaalaha koobaad haddaynu eegno horgalaha horta soo qaad igu xigsii tiradii jajabka ahayd. markaa jajab dhafan wuxuu ka kooban yahay tiro idil iyo tiro jajab ah oo 3 loo qaybiyay 4 ah. marka laga shaqeynayo rogayno jajab maqumane marka hore hooseeyaha ayaan waxaan ku dhufanaynaa horgalaha waa 4 ku dhufan 2 waa 8 haddii sarreeya okay waa 11. markaa 11 baad waxaad ka dhiganaysaa waxay ku noqonayaa sarreeye hooseeyaha 4 waad soo qaadanaysaa. markaa sarreeyaha weyn jajab maqumane inuu noqonayaa. tusaalaha labaad aynu eegno waxaynu qoranaynaa horgalaha oo 4 ah jajabtana way ku xigsiinaynaa 5 loo qaybiyo 3. markaa 3 baynu 4 ku dhufanaynaa waa 12 5 ugu gee waa 17. markaa 17kii sarreeyay noqonayaan hooseeyana waad iskala soo daadegaysaa waad iska soo qaadanaysaa triga. ka saddexaad haddaynu eegno horgalaha ayaad horta soo qaadanaysaa waad weynaysiinaysaa jajabkii baad igu xigsiinaysaa 2 loo qaybiyo 5. markaynu rogayno hooseeyana ku dhufano horgalaha waa 10 2 igu sii geeyo sarreeyaha oo 12 hooseeyahana waad iskala soo wareejisanaysaa 5. ka afraad haddaynu eegno horgalaha 5 horgalaha iyaga oo diro weynaysiinaysaa horgalaha 5 jajabku wuxuu 5 loo qaybiyo 7. markaa hooseeyaha horgalaha igu dhufo waa 35 5 igu geeyo waa 40 baa sarreeyay noqonaysaa markaa tirada la soo baxday hooseeyahana waa iskala soo wareegaysaa 7 ah. tusaalaha ugu dambeeya haddaynu eegno shanaad marka hore horgalaha ee qor igu xigsi jajabka 0 loo qaybiyo 8. markaa waxaan sameynaynaa hooseeya horta igu dhufo horgalaha waxa weeye 40 buura 40 eber uge oo 40kii uun. markaa sarreeyay noqonaya xisaabta ku soo baxday hooseeyahana waad iska soo wareejisanaysaa 8. markaa maanta insha Allah casharka halka ayaynu ugu joogi doonaa oo inoo iyo casharka kan xiga inta ka horeysa. assalaamu calaykum.